mar kale waa horfadhi media warar dabadasha qiimaha leh waa khamiis 16 bisha 2018 waa bishii 8 dabcan wali waxa farta kaga jirnaa wararkii oo cali ugu dambeeyay adduunka ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Jamhuuriyadda Djibouti kula kulmaya madaxweynaha dalkaasi Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle sida uu goor hore ku qoray bartiisa Twitter-ka xubin ka tirsan madaxtooyada dalkaasi Soomaaliya Cabdinuur Maxamed la yiraahdo ayaa waxa uu sheegay in booqashada ay noqon doonto mid rasmi ah oo ku tagi doono magaalada Jamhuuriyadda Djibouti xarunta waa haysta Djibouti wuxuuna la kulmi doonaa ayuu yiri Mr Geelle iyadoo labada hogaamiye ka wada hadli doonaan ayuu yiri xoojinta xiriirka labada dal ee u dhaxeeya labada dal iyo in ay Djibouti iyo Soomaaliya yihiin kuwa ay ka dhaxayso u dhig ka dhaxeeyo waxa sidoo kale uu sheegaya madaxweynaha dalkaasi Soomaaliya in uu isku day doono wararku sheegaya inuu isku day doono inuu xalliyo markaasi khilaafkii xooganaa ee labada dal soo kala dhaxgalay kadib kolkii uu madaxweynuhu ku tagay booqasho bishii hore magaalada Asmara ee dalkaasi Eritrea oo ay dalka Djibouti dhul isku haystaan madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Djibouti ayaa la filayaa in ay wada hadalladoodu noqdaan kuwo diiradda lagu saaro sidii xaaladda geeska Afrika loo wada wajihi lahaa iyo sidii la isugu soo dhaweyn lahaa labada dal ee walaalaha ah iyo in la boorka laga jafo isla markaana meesha laga saaro madmadowga si kastaba ha noqotay madaxweynaha Soomaaliya oo diiday inuu ka hadlo dhammaan arrimaha ku gadaaman go'aankii hore uu ku taageeray Eritrea in cunaqabateynta looga qaado ayaa waxa rajo laga qabaa in ay soo afjarto xiisadda labada dal kulankiisan oo ku tagay magaalada Djibouti ee xarunta Jamhuuriyadda Djibouti waxaana la fili doonaa in ay warbaahinta si guud oo la wada hadlaan labada hogaamiye madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle asagoo marnaba kama hadal qadiyada hase yeeshee safaaradda Djibouti ee magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayaa horay ugu cambaaraysay dawladda Soomaaliya in ay ka tagtay dadka reer Djibouti oo iyagu xilli adag la soo qaatay isla markaana dhiig iyo naf iyo maalba dul dhigay bay yiraahdeen waa sida ay sheegeen dhiigoodina u shubay inay difaacaan Soomaalida iyo waliba amnigeeda iyo in dawladnimo Soomaaliyeed dib loo helo halka nagala socotaan horfadhi media weeye dabcanna isheen ku hay doonaa arrimahaas jimcaha bari ka soo qayb qaata arinta Turkiga ka taagan iyo qadiyada labadaas dal u dhaxaysa dabcanna waad ku casuumantihiin falaqaynteena qayb ka tahay idinkuna waad ka hadli kartaan dawadayaasha qiimaha leh mar walba waxaad qayb ka tihiin bahda horfadhi media dawladda dalkaasi Turkiga waxay ku dhawaaqday in 60% ay saari doonto ama 60% ay saari doonto alaabaha qaar ee uga yimaada dalkaasi Mareykanka oo ay ka tahay khamriga tubaakada iyo waliba waxa la yiri baabuurta warka ka soo baxay wasaaradda maaliyadda dalkaasi Turkiga waxa lagu tiqtiqsaday in sidoo kale 40% la saari doono cashuur gaaraysa khamriga iyo waliba waxa la yiri iyo qalabka elektroonigana uu noqon doono 20% halka baabuurtana 60% uu gaari doono taasoo ah mid markaasi qaarkeed laba jibaar ka badan yihiin tii Mareykanka uu saaray dalkaasi Turkiga lacag gaaraysa 533 milyan oo dollar ayuu ku kici doonaa arintaas iyadoo arintaas ay si weyn uga caroodeen aqalka cad ee Mareykanka gabadha aqalka cad waa warfaafinta u qaabilsan ama dalkaasi Mareykanka ayaa Turkiga ku cambaaraysay inuu sameeyay waxa ugu yeedhay xadgudub iyo wax ka badan laba jibaar waxyaalihii dagaalkii dhinaca dhaqaalaha la isku ogaa Sarah Sanders ayaa sheegtay in Turkigu weerar celiska uu keenay ama arkoosigiisu uu yahay xad dhaaf waxayna sheegtay in ay arrimaha si weyn ula soconayaan hase yeeshee mar la weydiiyay in ay qaadayaan eedda ah in ay burburiyeen xiriirkii labadan dal ka dhaxeeyay ee kooda jira gaashaanbuurta NATO iyo waliba in ay ayagu sabab u yihiin qatiyadaas iyo waliba jahawareerka ka dhacay lacagta liirada ayay sheegtay in aysan qaadi karin ama Mareykanku uusan mas'uuliyadda qaadi karin waxayna ku gacan sayday in dabarka loo saaro dhamaan dhacdooyinka ka jira dalkaasi Turkiga Mareykanka waxay sheegtay in ay xaaladda si dhow u darsi doonaan Sarah Sanders hadalkeeda ayaa sidoo kale ku soo beegmay iyadoo maxkamadda racfaanka ee Izmir ee gobolkaasi Izmir ay ku gacan sayday dalabkii baadarigu shalay u gudbiyay maxkamadaasi ay ahayd in racfaan uu kaga qaato xukunkii hore ku dhacay maxkamadda ayaa sheegtay in ilaa hadeerto lagu hayo dambiyo baadariga sida daradeedna aysan jirin sabab racfaan loogu ogolaado taasuna waxay sii adkaysay xiriirka labada dal oo aad iyo aad awalba xaaladdu adkeed ayay cirka ku sii shareertay dabcanna haatana Qatar dawladda dalkaasi Qatar ayaa markaasi waxa ay ku dhawaaqday in ay lacag gaarayso 15 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo maalgelin toos ay ku sameynayso dalkaasi Turkiga taasoo ah lacag cadaan
أمير الشيخ تميم بن حمد الثاني أيا أبقولي مقالة أنكرا سي أولا سو كل مودي سدالكاسي تركيا رجب طيب أردوغان أو سدوين حوغان ugu sameeyay magaalada xarunta oo ah dalkaasi Ankara أمير حمد بن الثاني ayaa wuxuu sheegay ama أمير تميم بن حمد الثاني ayaa wuxuu sheegay shir jirayd oo la hayay dhigiisa dalkaasi Turkiga ayuu wuxuu yiri Turkigu wuxuu yahay walaaladayo waxaanu isgarab taaganaa walaalaha Turkiga waqtigan sida ay isku garab taagaan xaaladaha caalamka islaamka ayuu yiri Mr. Al-Thani asagoo kol damana isla hadalka ku soo qoray bartiisa Twitterka wuxuu yiri waxa aan rabaa inaan halkan ka cadeeyo dalka Turkigu waxa uu garab taagnaa dalka iyaga in badan annaguna maanta waa maalinta isgarab taag lahayn 15 bilyan ee dollar ee package-ka ama bushqada ah waxay noqon doonaan kuwo si toos ah loogu maalgeliyo dalka Turkiga gudihiisa ayadoo lacag cadaan ah waxaana xoog la saari doonaa iibsiga lacagta ليرة وحا وصدق كله أمير تميم وشيء إن بقولال قف ولا سعودي ومال قشريال غير قطر أي تشدي بصف وقلين إن يبسدان العقد الليرة ويكون بدشان دولار يذهب وحنا تاسي عركة تشدي بكشر يرتي العقد الليرة أيضا العركة العقد الليرة وبقول كيب اللح دي بصو نقطي شرعي يا مانتا وحا أي صدق كله شيء يعني العقد أي وحكتر الدون تو إن أي كرو قاعدة ميزانية الدولة التركية وهاتن وقندي إن العقد مريكان كلغة دعالم إبراهيم كلين وأهفيان كمدحتوية الدولة التركية أيها وحو شيء إن أي تنوتهاي وحو ويري وح عديانا يسيد قدر مولالها قدر إسكسو قرب تاجن حلي كمد حلي ذا اللو بهنيهاي أيوري تركيا أو شيء إن أي حوتشي دونان أيقونا dhamaan cilaaqaadiyada ee la lahaayeen waxaana sidoo kale laga wada hadlay arinta leeyahay arrimo kale waaweyn oo ay kamid tahay suuxays dhaafsiga dhinaca amniga mukhaabaraadka iyo waliba dhaafsiga wararka Salim bin Mubarak al-Shafi oo ah safiirka Qatar u fadhiya dalkaasi Turkiga ayaa asaguna wuxuu yiri waxaanu sii wadi doonaa inaan isku garab taagno walaalahayaga Turkiga sida aanu isku garab taagnay xilligii weerar كيد عسوبي أفجم بجها القصة قاضي لبدي يكون يلحي طبعا يجي الشافي وحوصاص وحجري وحان كلو يدي عدينا يا ملايين وحور العقد اللي رضعه وحق قاضت دونه أو لو ريق دونه إسلام كان بنقية ده كش بدونه بوردات كرير قطر تعصو استراتيجية أي نولت من دولة الكاسي تركيا جو أي كم استراتيجية أي كو حوجين يسول العقد هذا وحونا الشيء إن أي قدر سيود دون طو حرير كونكسن إليه ولا له أرنتن أيا وحا أي موجين سعسيدة دلالك قدر يدل كاسي تركيا جو أي سكون حقلين إلى حد أيضا دلك تركيا جو هذا دلك لو ما الموت كدب إذا ما كنت عبراي دل كاسي قطر كل دوني إن أفك عيد الله در دلك قدر لبدي يكون إيو تطبيق توم بشي شنات أيضا بشي تطبيقات بشي تدبدي دي بقى بشي لحد تدبدي دي برلمان دل كاسي أي أمر كبحيان إن عيد ما دو أجوران دل كاسي قطر دلال كاس أيا إلى حجر كود آد وناكسن يهتن وحين كم ديهين لبض دل السجود عالم كإسلام كمركز الإيجو كارهان أرمها لنا وناك أو أي يجو أنت بدن متشرتو هل دل ولا بدل دلو أي حجر كود الجوين منها علاقات كده ما أذكر إنه صدق دلك السعود العربية يسكت إمارات كعربته وايو سعود العربية يو إمارات كعربته واحد مدة أنا يسكت كالمايستان كرت هذا يو إلى هاي يجري يسكت كالمايستانين كرت هذا وناك يبرر يسكت كالمايست طبعا waxaa muuqata in dalalkaasi haatan iyagu isku kalmaysanayaan dhinaca positive-ka bedelkii ay dhinaca markaasi dabcan ay gardarrada isku kaalmaysan lahaayeen daawada qiimaha aan ku suuqa wararka iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda iyo wararka ugu dambeeyay dunida sarkaalka kamid ah saraakiisha ugu sarreeyay ciidamada dalkaasi Mareykanka ee howlgalka kala soo horjeeda kooxda ISIL ee la yiraahdo Major General Felix Gadni ayaa wuxuu sheegay ama ka digay in militariga ka dagaalamaya xiriirka wanaagsan la leeyahay buuri dalkaasi Turkiga ee ka dagaalamaya wari bariga dhexe lagu faafiyo ayuu yiri cilaaqaad xumada labada dal u dhaxaysa ee Turkiga iyo Mareykanka wuxuu sheegay in aysan arintan waxba ka khusaynayn labada military oo uu sheegay inay ka wada shaqeeyaan gudaha dalkaasi Syria iyo hawlgallada ka dhana kooxda ISIS ee lagu baacsanayo asagoo ka hadlayay wasaaradda difaaca dalkaasi Mareykanka Pentagon ayuu wuxuu sheegay General Gadni in uu sii wadi doono militarigoodu cilaaqaadka dhow ee leeyihiin kuwa Turkida oo ay u baahan yihiin dagaalka ka dhanka kooxaha wax qarbada iyo baacsiga loogu jiray ayuu yiri asagoo sheegay ilaa hadeerto inaysan ka imaanin wax calaamad oo muujinaysa oo cara ah oo ku dhex jirta saraakiisha militariga dalkaasi Turkiga ee qaybta ka 7ka dal ee la diriraya kooxda ISIS iyo ciidamada loo yaqaan Company Joint
task force ee ayagu howlgalka ka dhanka kooxdaasi ku baacsanaya. warka uu halkaasi ka sheegay sarkaalka wuxuu sidoo kale sheegay inaysan iyagu aysan haday yihiin labada military aysan siyaasiyiinta ahayn, sidaa daraadeedna wuxuu yidhi dabcan labada dal ma iskama bedelin buu yidhi xiriir waxba iskama bedelin buu yidhi militarigooda xiriirkii ay lahaayeen, waana laba ciidan oo taxaaluf wanaagsan leh ayuu sheegay General Felix Gedni oo la hadlay wakaalada goordamana la hadlay wakaalada wararka dalkaasi Turkiga Andalus. halkan nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay iyo warbixinada cabdilmaasiyada daawadayaasha qiimaha leh ee Hurfadhi Media. dabcanna daawadayaal tan iyo intaan sarki doono amaanad.